wafti ballaaran uu hogaaminayo afhayeenka xisbiga Wanalif ay ku weelinayaan mas'uuliyiin guddi fulina hoggaanka samafalka iyo daryeelka iyo hoggaanka xigeenka warfaafinta Jowxo waftigani ayaa booqday tuulada Gabagabo oo ay dhawaanay ka dhacday dhacdo aad u foolxun isla markaana ay gabadh yar dayac dirteeda ugu dhimatay bohol hadaba mas'uuliyiintan ayaa booqashadoodu ahayd inay reerka u tacsiyeeyaan isla markaana ay gaarsiiyaan deeq isku jirta lacag iyo raashin kadib markay waftiga soo gaadhay tuulada Gabagabo ayaa waxay u lugeeyeen guriga ay ka deganaayeen ehelkii dhalay gabadhii dhawaan ku dhimatay bohosha hadaba tuuladani ayaa tuulooyinka aad ku dayacan isla markaana aan lahayn jid biyo waxbarasho iyo caafimaad isla markaana mas'uuliyiintani waxay lugeynayeen muddo dhani bar saac iyadoo wadooyinka la marayana ay ahaayeen hawd ama meel ay geeduhu ku badan yihiin ugu dambeynna mas'uuliyiintu hogaaminaya afhayeenka xisbiga Wanalif iyo mas'uuliyiinta kale guddiga fulinta ahayd ayaa waraysi iyo booqasho la dhex qaaday hooygii ay ka dhalatay gabadhii dhawaani dayac darteed bohosha ugu dhimatay adeer amaal baawda shalay baad jabtay darabta jabtay miya oo gabadhii meesha ku dhacday ka yartahay miya kuwin taas yareed ana iga weyni adiga ka weyni gabadhi magaceed muxuu mumtaaz marka tan markii ay la socotay labadana la socday taas gacanta hoos ugu laalaadinaysa tan inay soo qabatay rabtay ma waxa ku leedahay qabo taas ay qabo ku tan ay qabo ku lahayd haya marka meel la gaar karay maahan hay walaal seeti iska fiican magacaaga muxuu adiga Faadna Axmed Faadna gabadha dhal hay meesha waan tagi doonaa waxba inaan ururkii oo la faanahay inaan reerka soo gaarno idin tacsiyeyn meesha duruufta lagu nool yahayna soo aragnay jeedada laakiin meel aan idin soo maraan weyn waa halkan kolkaad joogtay kolkaad boorley soo gaadhay mid nala sahaleena anaga halkaas si fiin kulligood xagga mar umayna lahayn boorley baan weydiinay xagga u socda xageen maraa xagga u socda xageen maraa xagga u socda xagga ka wareega xagganaad maraysaan ruux maskaxdiisu intay saan u shaqaysay halkan ugu dhow halkan qaris taagmaanayn xagga ka wareega xagga ka wareega soo dulmar lahaydeen un baalka jiibaash oo gacanta joogno xanuunaysaa ka soo fadhiisan ya halkan ma halkan dhow bay ka booday halkaas inta istaas u dul taagday ay tirban boodi marka gacanteeda u laa ya hoos u marto wala jabay lagama soo boodgeedaa ya adoo mas'uuliyiintii booqatay u tacsiyeynaya reerka ayaa waraysiyo iyo warbixino siiyay waxayna mas'uuliyiintaasi soo jeediyeen khudbado ku saabsan iyaga oo qalbiga u dejinaya ehelka ay ka dhalatay gabadhii dhawaan dayac ugu dhimatay bohosha waxaana mas'uuliyiinta hadalladooda isku xigana kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim aw gabdhayn way fadhiyaan Soomaa waxaana ururka Wanalif aad iyo aad baan qoyska magacaagiisa walaal Cabdi Jeex Jaamac iyo reerkiisa inaan tacsi ugu nimaano yahay anagu markii maanan idin soo gurban karin gooray gabadh afar bari kadib baan maqalay markii soo gashay media baan ogaanay markaan mar wax loo qabanaya ma ahayn waxa kale oo filaynaa inay dawladdu wax idin qabato oo hay'adaha maadaama la soo ordo oo reerka maartay wax lala qabto ma ogin sida wax leedin ku taray calaa yaal anaga urur ahaan maadaama oo aan dareemayno in xil naga kin saaran yahay jaaliyadaha dibadda iyo qoliyaha gurmad yar isku soo ururiyay intaasaan idin wadnay tacsi gudoomiyihii hore ee gobolka Faafan ee Wanalif Yusra Ahmed iyo muxuu ahay dadaal ay sameeyeen hoggaanka samafalka ee ururka yaan idin ku nimid marka inaan meesha soo aragno noloshiina soo aragno meesha ay gabadhu ku dhacday aragno duruufta dadka ka maqan sababta loogu gurman waayay jidadka iyo maamulka dawladda sidoo yahay iyo sida loo caawin karo mustaqbal ahaan iyo in laga warhayo iyo say meesha u taalo inaan soo aragno idin ku nimid marka ilaahay badal khayr qabo gabadha meeshada idin soo galiyo samir iimaan idinka la idinka siiyo بدل خير قبنا على ما يشيس هذين سوق ليه أناقنا وأنا ذكر هنا ده هذا قلب دولة ما يسمونه ضد روحي كلا دبعته كله على لو سوق المد لكن وحن شعله ضد كنا بررنه يهرت يشيت سماستان يجون يسوق المدان وحول با دولتها دونكم ما قبطان وحنا ضد كها قبصة وحنا الدولة على قبط مركز ضد كان يسحل قاندرة يجنا كم موقت هل كوين كبرانشين أتبيرين نقطتان وضد سماستان قبله يسوتها isku tashado dawladda cadaadiyo wax noo qabtay ilaahdo iyaguna wax qabsadaan
waxa kalena waa lagu qasbanaa in loo qabto dadku inay nool yihiin oo xay yihiin oo ay cagahooda ku taagan yihiin soo jeedaan yaa wax loogu qabtaa laakiin haddaad intaad kala daadato inaad nooshay in kale la kala garan waayo cidna wax idiin qaban mayso insha allahu annagu kolkii horena waan idiin dagaalamayn haddana waan idiin halgamaynaa waxaan idinku halgamaynaa in dadka Soomaaliyeed nolol tan ka horumarsan helaan jidad helaan dhakhtar helaan iskuul helaan beerahooda loo horumariyo shaqo loo raadiyo ummadaha kale la sinmaan yani carruurtooda inay gebi kaga baktiin iyo gud dhakhtar la'aan ayna u baktiin cagaf la'aan ayna u dhimanin jid la'aan inaan loogu gurman waayin marka insha allahu waan ognahay duruufta waddankeena ee dagaalka iyo dhibaatooyinka jira iyo kala daadsanida waan ognahay waan ka baxaynaa tacsida ururka iyo shacbigeena idin soo diray ururka ONLF iyo xubnahooda dibad iyo gudaba yaan idin wadnay iyo muxuu ahaayay booqashada qolada samafalka idin soo sameysay insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa sida idin sheegay mas'uulka sare ee hogaaminaya ee ka socda jabhadda wadaniga xorriyadda hogaaminaya ama xisbiga ONLF marka awalna midnimada Soomaaliyeed waa muqaddas Soomaalidu haddii ay midnimo weydo kala daadsanaanta wada la'aanta dhakhtar la'aanta jid la'aanta waxaasoo dhan weyn haysanaya marka insha Allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa markuu horeyso midnimo awlaadana waxa weeyaan geeridu waa mid aan wada leenahay waa gabigeena ku xukuman awlaadina isku tacsiim laho waa saqiir oo ifi aakhir labadaba waa loo baahan yahay laakiin arinta foosha xun leh ee dhacday oo ilmo yar oo dhowr bari ku jira meel oo qayliyaya waxa weeyaan hooyo wax dhasho dhan way taabanaysaa qofta miirlo dhan way taabanaysaa aabbo dhan way taabanaysaa marka arin aad argagax u labay noqotay maalintii baa misaatan milyan baa dhimanaya misaatan kun baa dhimanaya oo si kale oo gedisan u dhimanaya waxa weeyaan naftu taan bay la mid tahay waana saqiiran dambi balahayn bay ahayd laakiin falka ayaa dadka soo jiitay sida xun ay u dhimatay waayo ilmo uu ku dhacay meel in loo gurmado oo markiiba laga soo saaro laakiin intaasoo beri uu ku jiro taa weeyaan dadka taabatay ee qalbiga dadka aad u ruuxday marka ilaahay waxaan idin ka rajaynaynaa in ilaahay kuwa kale idin hadhay idin barkeeyo wixii taa ka baxdayna kuwan idin geliyo iyaduna shafeeca la idinka dhigo marka annagu wax weeyaan waxaan qoyska ugu tacsiyanaynaa tacsi la isku tacsiyeeyo midda ugu dareenka iyo naxariista badan kulli gabadhan geerideeda su'aalo fara badan baa la iska weydiinayaa oo yacni qaabka naxadinta iyo yacni dayaca ah ee ay ku baxday su'aalo fara badan bay bulshadu iska weydiinayaan waxaan marka rajaynaynaa inay noqoto midii ugu dambeysay ee dayac noocaas inagaga dhimata haddii loo soo gurman lahaa meel loo soo maraba lama heleen inkastoo hadday dawladda gacan u qaado gacantii dawladdu ay meesha ka marnayd aan dareemayno oo god yar oo meel ku yaala diyaarad baa loogu iman karaa oo gaari aan dheeriga iyo godku karin baa loogu iman karaa waxyaabo fara badan baa loogu iman karay laakiin inay iyadu soo afjarto dayici noocaas ubadkii inagaga baabi'i jiray waxaa dayaca iyadana gabadha ka weyneyd ee la socotay inay haddana shalay geedkan ka soo dhacday jabtay iyaduna waalidku inay marka iska saaraan xil sidan hadda ka weyn dayaca ubadku waa qaali marka hadalkii waxaa dhameeyey mas-uuliyiintii iga horreysay waanu idin tacsiyanaynaa dareenkan waan idinla qaybsanaynaa aad baad u mahadsantihiin waan idin salaamayaa dhammaantiin rag iyo dumar dadka meesha fadhiya in muddo abay lacagtu gacantayda aniga ku jirtay 7 cisho may 6 cisho gacantayda ku jirtay 6daa cishana jaanis xaggeena ka liigayay ayay u soo gudbi weyday sida awgeed fursadii aanu ku soo gudbinayno helay waa tii maanta ahayd ilaahay qadarkiisana maanta bay ahayd dhammaantiin waad salaamantiin reerkan Allah lacagtu waxay ahayd $1 bay ahayd marka in raashin $1 bay ahayd 40,000 oo lacaga halkan aanu ku wadnaa intii kalena kiish sankora kiish daqiiqa 2 kiish oo bariisa kartoon baasta ah jeerikaan saliida ayaanu soo siinay intii kor socotay intaasaanu soo siinay awlaada Allah barakeeyo dadka iyo dalkaba Allah idin macaaneeyo aad baad u mahadsantiin waadin galay lagu tarin karo ma yaalo dareen tacsi iyo muruga yaala waan la qaybsanaynaa xaafadda iyo reerkaba tacsida tiiraanyada leh ku timid وانا صدق ما انت قلت كلمه قلت كل وقتين الدنيا ما انت هلكا لما تشوفه قلت او قلت كل وقتين اسكا دايا حتى لما اوغلو انه المير الدنيا لما اوغلو
ciyaalkeena waxay xaq u leeyihiin inay noolaadaan sida ciyaalka dunida u noolyihiin ciyaalka carabta iyo ciyaalka maraykanka iyo ciyaalka afrikaanka sida u noolyihiin xaq u leeyihiin inay noolaadaan ma ahan ogolaanay in ciyaalkeena good ku baxbataan inaan hadlin habartiina uma qadisay baa leeyahay dadkan waa inay dad meel oo soo jeedo horta noqdo dadkan waa inay dad tiifan noqdo wax walba ku qanca duruufaha adagada ku qanacdo weliga kama baxaysid waa inay qof la soo jeedo dhiirano cid walba meel walba wax kaga jiraan ka xisaabtanayo inay noqoto dawlad buu wadankan leeyahay tuulidan qabalaygan aan soo marayno muharaba ku yaala canshuur baa laga qaadaa dadka sida canshuurta laga qaado shilinkoodii baxayeen oo haddana sidaan ahaado meel loo soo mara xataa la waayo oo carruurtooda marka inay good ku baqtido markay good ku baqtidana meel loo soo mara la waayo wax aad u nasiib dareeyay dhammaan dhalinyarada ururka dhalinyarada maxaan ku dhahay ururka dhalinyarada ee ka mid ah jabhadda waana ururka dhalinyarada si wuxuu tacsida tiiraanyada la wadaagayaa oo xanuunka geerida la wadaagayaa reerkan waxaan leenahay ilaahayga awoodda badan oo inta haynaga kooba masiibada sharteeda gabadhan maxaan ku ilaahay saqiir barakaysan ilaahay ka dhigo ilmo dambana insha Allah taala halka inaga dhinto laakiin odayaasha iyo dhalinyarada iyo qabalayadana waa inay isu yimaadaan waa inay tashadaan waa inay isu waa la xisaabtanaan dawladda wadankan u leeyahay dawladda wadankan ka jirta waa in laga xisaabtamo dadkuna ay isku tashado inta yar hadda aan soo maray 20 wiil qabalayga kamid ah banaan karta oo ka dhigi karta bartu gaarigu uu naga istaagay aan hadda gaarigu yeelay ilaa iyo halkan in la soo maro 20 wiil ba ka dhigi karta banaan karta dadku waa inuu dhulka jeexo dhulkan la isu baneeyo marka la isu baneeyo dawladda leeyahay ayaa naga inta sameysanaay wixii xaqanaga wixii dawladda naga jiraan u baahannahay dadku in dad soo jeedaan oo wax xaqiisa raadsanaya sidaas daraadeed ilaahay masiibada inta hanaga koobo ilaahay iyagana saqiir barakaysan oo iyo shafaaca qaad ka dhigo ilmo dambe ilaahay goodkana uga baqtiyo laakiin waa inay soo jeedaan xaqayna raadsanayaan mahadsantiin afayeenka xisbiga ONLF ayaa mar kale mikrofoonka qaatay isla markaana ka warbixiyay xaaladda dhabta ee ka jirta deegaanka isla markaana reerkani ugu duceeyay in bedel khayr qabo ilaahay siiyo waxaana afayeenka hadalkiisa kamid ahaa waxaan doonayaa inaan xuso dadkeenu inay isku tashadaan carruurteena wax يعني دولة حمدة هي من حمدة هي سحل قام دريدة تدوينه كارنتو هذا مبوحيان دولة دين مبوحيس ما يشاء ضيع بعمر كلش عروتين وحبر الشذا هي تشيدتك هي عافماتك هي سيد أنت قبل أن صوم مرة أنت ما يلود يعني ما يلان جاري مرنا ويني مركز أكتو ضد كان الله شو سكول سيد كوارت ويا أدك تاي وضفي عن سيد كوارت ويا أدك تاي ماشي أنا بقولال سنة دقنين مركز قارما إنه نور سميسين ناوي سويتيني ضدك هذه الدولة ay maalayaan inay dawladda ka dirsugaan bay haday arkaan inay dawladdu u maqneen soo inay gacmahooda iyo maskaxdooda iyo xoogooda iyo dhaqaalahooda inay maalaan oo wax ku sameystaan jid oo isugu gurmadaan oo system adduunku bini aadamku system ka noolaa marka insha Allah carruurteenu inay raqiis noqonin baan doonaynaa hadafkayga waxa weeyaan inuu ilmo walba oo keena waxbarasho helo caafimaad helo nabadgelyo helo midnimo hesho Soomaalidu dadkii Soomaaliyeed midnimo iyo muxuu ahaayay wax isu tar iyo suhiilin iyo iska warqab inuu yeesho oo muxuu ahaayay dhulkeena aan wax u tari karno dadkeena wax u tari karno oo ruuxu inuu ummad ka tirsan yahay ogaado hadduu ruuxu uusan cidna ku aroorin oo kali cirkaa dhel dhulkaa dheer u noqdo bini'aadamku xataa ma noolaan karayo bini'aadamku waa wax noloshiisa isku xidhan tahay oo hadda geeska galbeed baan joognaa dhulkeena isaga ka bariga isku xidhan halka hadda bariga dhibaato ka dhaca halkana way ka dhici marka dhibaatadii way taabatay sidii uu sheegay muxuu ahaa fakaara sheegay dhibaatadii dadka Soomaalida dhan bay taabatay dareenkooda meel jigjiga inta u jirta iyo dhibaatada inta leeg marka kala daadsanida iyo dawladihii ina soo xukumi jiray xumidooda iyo jid la'aantoodii iyo muxuu ahaayay qalab wax u adeeg la'aanta iyo isxilqaan darrida iyo tilmaan u tahay inaan ka baxnaan doonina dadweynuhuna ka baxaan baa la rabaa dawladuna ka baxdo shaqaalaha dawladdu dadka xilka saaran yahay ka wacyigan oo dhan way is wada marka insha Allah horaan u qaadaynaa haddaan jawxana waxaan dadka Soomaaliyeed toosa noloshu sidaa ma aha dawladnimadu sidaa ma aha midnimadu sidaa ma aha ummadnimadu sidaa ma aha qarannimadu sidaa lagu ma dhiso iska warhayn iyo isxilqaan iyo dad soo jeeda iyo isu heelin bay ku dhisan tahay marka insha Allah dadka Soomaaliyeed waa in la xaduunsadeen siyaasad yeelana tabarucaad yar oo liin soo ururiyeen hogaanka waxa idinku wareejinaya insha Allah gabadha ugu dambeyntiina khiyaaray gudoonsiin iyo ducayn kadib hogaanka xigeenka warfaafinta Jowxo halgama afakaadho Maxamed Axmed ayaa warbixin yar la yeeshay hooyadii dhashay gabadhii dayac ugu dhimatay bohosha wuxuuna wareysiga hooyadii dhashay gabadha iyo hogaanka xigeenka warfaafinta Jowxo halgama afakaadho Maxamed Axmed uu dhacay sidan saacay ahayd markii ay ku dhacday aan socon horta hay aan socon inaga socon meeqa saacay ahayd markii gabadha hadda ku dhacday aad ogaateen waxay ahayd 9 saac 9 duhurnimo
casar gaaban xilliga aftiryaa la duuliganayada okay halkeed joogtay markaa halkeed joogtay anigu xaafadan joogay yartu laba jeer kolkaan celiyay mar saddexaadkii oo waan soo ciyaaraynaa aan soo ciyaaraynaa anigu amaal baan raacay amaal baa la yiraahdaa yarta yar iga jaban haye amaal baan hooyo raacay anigu waan soconayaaba igu tiri haye markii saddexaad ayaan ugu dhex tagay meesha qaraarka iyadoo ku dhex jirta godkeeda ku jirta godkeeda ku dhex jirta markii saddexaad yaa ku soo sheegay oo ku yiri ayaan kii yaraa waxaan ku yiri kii cambaar ii soo jira oon say soo gaadhin de calooshii cunaysa kan yar buu ahaa kan yar buu ahaa oo naxsanahay umaan kii yaraa isagoo cambaar godkii ka soo socda baan kulanay annana aqalkayga ka soo baxaan leeyahay bal caruurtii baan fiirin marka guriga waa ka marka ka soo baxay xageed ku kulanteen halkan baan ku kulanay halkan bartaan ku kulanay okay bartaasan ku kulanay godkuna waa ka iga shisheeya godku waa halkaas halkan waa ku kulanteen iga shisheeya ka yarada ii imanaya iyo ilmaha ii sheegaya halkan aan ku kulanay gurigeygina waa ka waan ka yimiday okay marka ka yari uu ku sheegay ku yiri gabadhii god bay ku dhacday ee aadeen maxaa la kulantay maxaad aragtay markii uu horeysay ana dad islaam ugu horeeyay markaan arkay ilmihii hada inta madaxa unan ya allah ku arkay codkeeda laakiin tamaam codkeedu tamaam baan maqlay oo codkeeda caadi u maqlaysay hooyo faadmo macaan oo iga saar meesha waa cidhiidhi hooyo cidhiidhigan iga saar hooyo xambaara ayay tiri markaas aan qalabadaydii la qaaday ana marka de xaq dawladeed u dhaqaajinay isma dhihin halkan xaadho de sideed kula soo baxdaa oo gacmaha ku xaadho heerrafa mooyaane isma badihina de maba baraarugsaneyn ba marka dawlad aad iyo cagaf dooni iyo waxa maada isku dhicin waxa damacdo inaad ilmihii godka kala soo baxo ilmihiin godka kala soo baxo maan ku fikirayaa isma lahayn de maanta dawlad waxa ku joogta in ka xogroon oo ku soo saari kartay markaaba waa soo saaran baan fikradeedii ku jirta haye hooyo dhashay baday anu hooyadii dhashay baan ahaa ilmihii qalabadaydii bay qaaday cidii soo gaadhay magaciisi way garanaysaa adeer maxamed weli iga saar adeer maxamed weli iga saar cid walba way garanaysaa iga saara meesha cidhiidhiga marka meel de jeegna una geli karin bay ahayd jeegun baad u xisaabta jeegun baa gali kara marka de ilmo dhiig leehayde markii labada garab saa iskugu soo celisay de way sii dhaadhacdan meeshana meel hoostana qowka hoostana way sii duleeshay hoosta way sii dalooshay hoostiina ma gaarsiisanayn dixdiina meel qarrado saa u dilaacsan bay ahayd sidaa una sugu sii ay waxaynaysay ayay markaa gaadhay meesha ugu wasiisay iyada waraarkii sidaa u hayo labadii dhaban sidaa uga hayo oon xadhigaan sidaa ugu dhaadhicinana ayna awoodi karin inay sidaa ugula soo baxdo ay qabsato inay awoodi karin oo gidaarkii labadii dhinacbu sidaa uga xajinaya markaa codkeedii taam baan u maqlin waxa weeyaan dadkiina dee sidaa anigu ahaa unbay ahaayeen dadkii dee shicibka ay soo gaadhay sidaan de laba dhiraaroodaan waan soo bixinaynaa waan qabanaynaa kolley dee kolkay ay hiraabtii gaadhay kolkay sagaalkii ku dhacday ay hiraabtii gaadhayba naftu yarta ay ka baxdo laba gidaar kaana ka soo go'ay kana ka soo go'ay oo dhexdii ku jiray ayaa yarta aamusiiyey gidaar baa ku dumay ayaa hoos ugu dumay markii maqalkeeda iyo sheegeeda nooguba dambaysayba hoosba yarta u dhaadhacday waa sida macaanay walaal ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo ilaahay samir in kan hadda aan soo qaadan alaabta samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo wuu dhacay waxna way qornayd oo wax qoran bay ahayd marka mana aydan hormarin karin mana aydan dib marin karin laakiin wax kastoo dhaca sabab buu yeeshaayo dhaliisheeda cid un baa qaadata marka ciddii dhaliisheeda qaadan lahayd ee isla xisaabtami lahayd uun in hadda filankeeda la gala mooyaane dee qabalaha intan kuu jira ee meesha guddoomiyey lahayd degmada intan kuu jirtaa guddoomiyey lahayd gobolkii 14 kilomitir kuu jira wuxuu leeyahay maxaan ku dhahaa guddoomiye gobol madaxtooyadii baa degan oo dawladii baa degan kun cagaf baa taala hal cagaf oo intii gebiga dhan lagu soo qaado maan la awoodi waayin marka isla xisaabtankaasi wuu jiraa laakiin iyadii nafteedii lama soo nooleyn karo oo ma awoodna inaan hadda soo noolayno imise jir bay ahayd tayar 3 jir bay ahayd 3 sano jirtay 3 sano jirtay middan ka weyn imise jirtay iyada ta kale hadda jabays waxba ma kala weyna sagaalkii biloodan caloosha ku siday umbe kala weyn iyo sanadkii aan nuujinayo umbe ka weyntahay 2 sano ka weynta marka wax iskuulaha idin dhow ma jira oo ciyaalihiin hadda ay dhigtaan waxba iskuul ma jira halka magaal caasho nooguma dhawaday halka gabagaba anaga wax iskuul nooguma dhawaday magaal caasho de ninkii caruurta ay u roon tahay de yu u loodi karaa oo yar loodi karaa uu tagi karaa de magaal caasho sidoo jirtay anagu de reeb waxaan nahay baadiyaa ma gaari karaa halka
marka halkan beera aad beerataan iyo waxbaad u degantihiin halkan beerahan ninka dhex soconaad arkaysid cagaf faal lagu rogay dabadeedna shinni baa lagu dhex daadinayaa kabacdi baa dee lagu ayaa la kolka la beero roobku kolku gudo way xasiidaysaa waad goosanaysaa marka inta raashinka umad meesha u degantihiin inta raashinka ma u deganayda wax kale oo deganay ma jirto akhyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee booqashadii mas'uuliyiinta xisbiga ONLF ayaa ku soo dhamaatay jawi farxadeed isla markaana si ay dardaaran ku dheehan tahay oo u dardaarmay dhammaan bulshada degan tuuladani iyo guud ahaanba deegaanka Ibraahim Catoosh wakaalada wararka ee ONA